qoraaga caanka ah ee Nuuruddin Faarax ayaa dhawaan waxa loo aqoonsaday inuu ka mid noqdo American Academy for Arts and Sciences. akademiyadaasi oo ah mid ixtiraam weyn ku leh caalamka waxa xubna ka ah dad fara badan oo magac leh oo caalamka hore u soo maray iyo qaar imikaba guulo waaweyn ka soo hooyay xirfadaha ay ku jiraan. Nuuruddin Faarax ayaa la guddoonsiin doonaa xubinnimada ururkaasi bisha Oktoobar ee nagu soo aadan iyadoo lagu guddoonsiin doono magaalada Boston ee dalka Mareykanka. haddaba Nuuruddin Faarax ayaan galabta kala sheekaystay xubinnimada loo aqoonsaday ee ururkaasi magaca weyn leh ee American Academy for Arts and Sciences. Nuuruddin Faarax marka hore aad iyo aad baan kuugu hambalyeynayaa xubintan aad ka noqotay American Academy for Arts and Sciences. hambalyaan ku leenahay. waad mahadsantahay Cabdisalaam, waad mahadsantahay. waayo su-aasha ugu horeysa jeclay inaan ku weydiiyaa waxa weeye abaalmarintan aad xubinta kaga noqotay akademigaasi maxay kaga duwan tahay bay kula tahay abaalmarinihii hore aad ku guuleysatay? horta waxaan ku yiri marka u horeysa waxay leeyihiin jaraanjaro kala sareeya. jaraanjarada salaanka u hooseeya waxaad ka soo bilaabaysaa dalkaad adiga ka tirsan tahay. aniga Soomaaliya Soomaaliga inta looga hadlo markaasaad waxaad gelaysaa darajo kale oo ah darajada continentka qaaradda aad u dhalatay. markuu ruuxii magaciisu sii weynaado wuxuu qorayna loo haysto inay yihiin maxay ahayd wax si aad dhaxalgal u ah. markaasaa dadka kale uusan continentkooda ka dhalan waxna aanay isu ahayn xurmadda ay u hayeen markaasoo kale waxay yidhaahdaan waxaad nagu soo biiraysaa akademiganaga. marka waxaad leedahay imika waxa la qiray in wixii aan qorayay adduunka oo dhan ay gaadheen oo laga ixtiraamayo soo ma? adduunka oo dhan oo keliya maahine in maxay ahayd boqolkii qoraa oo u wanaagsanaa adduunka in buugagii ay galeen. Nuuruddin oo markaas sidee loo soo xulaa qofka xubinta ka noqonaya akademigan? waxyaalaha lagu soo xulo waxaa ka mid ah buug kastoo la qoro waa la qiimeeyaa. waxaa qiimeynaya dadka kan la yidhaahdo tifaftirayaalka iyo waxa kan la yidhaahdo critics, dadka kan wax ka qora buugaga. marka waxaa jira inta afka lagu qoro dhan afafka lagu qoro. Faransiisku wuxuu leeyahay academy, Ingiriiskuna wuxuu leeyahay Royal Society of Literature. marka sida Mareykanka ay u doorteen in Nuuruddin uu ka mid noqdo Mareykanka ayaa isla markaa waxaa laga yaabaa ama sanadka soo socdo ama kuwa ku xiga in Royal Society of Literature oo England ah oo UK ah inay yiraahdaan Nuuruddin oo nagu soo biir. markaa si buuxda sidaan ka warhayo waxaad xubin uga noqonaysaa akademiga bisha Oktoobar soo ma? bisha Oktoobar 11keedaan u malaynaya haddii maxaa ahaa safar moogtahay. aniga sanad waliba 3-4 bilood baan jaamacad ka dhigaa Mareykanka. safarka haddii la geli karo Mareykanku hadduu soo hagaago South Africa hadday iriidyada u furaan in la dhoofi karo markaa kadib baan tegi karaa maxay ahayd Massachusetts baa lagu qabanaya. Nuuruddin oo markaynu eegno qaaradda Africa akademigan American Academy for Arts and Sciences qaaradda Africa markay dhinaca qoraayada timaado cid kaaga horeysay ma jirtaa?
هاي واجران وحاجرين اللي يراهدو ولشوينكا ونيجيريانا يعني اللي يراهدو جي ام كوتسي او ساوث افريكانا او حتى دقن لكن استراليا. نور الدين سؤال كلاس علينا كويديو حويه أكاديميا وحا حبي شرفات كا مدحوينيال فرا بدن oo soo maray wadanka Mareykanka oo qaarkood aasaaskii أكاديميا ay wax ku lahaayeen caalamka intiisa kalena hadday noqoto dhinaca sayniska iyo dhinaca qoraalada iyo dhinaca culumta kale dadkii waxyaabaha faraha badan la ku soo biiriyay caalamka ayaa loo aqoonsaday inay xubno ka noqdaan tusaale ahaan waxa ku jira in ka badan 250 qof oo abaalmarinta Nobel ku guuleystay marka dadka sidaas inaad gole la wadaagto ama ururkooda aad xubin ka noqoto sideed u aragtaa hadii waxaan u arkaa sharafan aniga isu keenayo kaliya maaha waxa weeye sharaf dadkii isoo koriyay dadkii ila soo dadaalay dadkii cunnada isiiyay markaan cunnada aanan haysan ama meel aan seexdo aanan haysanin isiiyay dadkaas oo dhan waxyaalahay ku soo dardareen in isugu kay soo dardareen in aniga aan awood u yeesho inaan wax qoro si la igu aqbalo inaan ku darsamo muxuu ahaa akademigan oo kale mana aha wax fudud maxaa jira mas'uuliyad kale weeye macnaheedu waxa weeye hadda kadib haddaan qoro buug aanan adduunka meelihiisa badan laga helin waxaa la dhihi war ninkii maxaa ku dhacay marka waxa weeye dhiirigelin oo keliya maahe waxa weeye eedisasaarna way noqonaysaa sidee bay ku noqonaysaa eedisasaar eedisasaartu waxa weeye magac weyn markii lagu siiyey ood magacii ka gaabiso halkii lagaa filayay aad gaari weydaad leedahay miya ahey waxaan u malaynayaa inaad halkaa hore u gaadhay nuurudiin faarax aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar kalena hambalyaanu ku leenahay waad mahadsan tahay cabdisalaam kaasi waxa uu ahaa qoraaga caalamiga ah ee Soomaaliyeed ee Nuurudiin Faarax oo telefoonka igu waramayay isagoo jooga magaalada Cape Town ee wadanka South Africa